لا 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 لا. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي. Bismillahirrahmanirrahiim. Ramadaan Kariim. Muuqaalkeena maantana waxaan kusoo qaadanaynaa cuntooyinka ay tahay inay dadka sooman bisha barakeysan ee Ramadaan ay qaataan si ay tamar badan ugu yeeshaan soonka, isla mar ahaantaana uusan u dareemin qofku in uu tabar yareynayo. Cuntooyinkaasi oo badan waxaa ugu muhiimsan cunooyinka loo yaqaano complex carbohydrates, kuwaasi ay ku jiraan waxyaalaha loo yaqaano xubuubaadka ama cerealska. Haddii aan soo qaadanana waxaa kamid ah qamadiga ama sareenka waxaa loo yaqaano, digirta noocyadeeda kala duwan, kuwaasi oo dhammaantood la qolofta aysan jirkeenu u sahlanayn dheefshiiditaankooda. Sidoo kaleeto waxaa soo hoosgeli kara dhammaan waxyaalaha kaleeto ee aad garan karta ama kugu soo dhici karo ee la halmaala cunooyinkaas. Waxaa kaleeto oo iyagana kamid ah khudradda noocyadeeda kala duwan sida koostada oo ah runtii source amaba il muhiim u ah marka ay timaado waxaa loo yaqaano diet fiberka amaba xargaha iyo qolofta cuntooyinka laga helo kuwooda ugu muhiimsan ayay kamid tahay. Sidoo kaleeto waxaa soo geli kara babaayga, tufaaxa, cambaha iyo dhammaan khudradda kaleeta ee laga heli karo diet fiberka oo dhan. Sidaa daraadeed waxaa qofka muhiim ah in uu isku dayo xilliga suxuurta ah inuu cunto culus qaato, cuntadaasi oo markuu cuno waqti dheer ku jiri karta calooshiisa, kana caawinaysa in uusan qofku si dhaqso ah baahi ku dareemin, maadaama cuntadaasi dheefshiiditaankeedu aysan u sahlanayn jirkeena ayna leedahay qolfoof jirku uusan si dhammaystiran u shiidi karin. Dhanka kalena waxaa muhiim ah in xilliga afurka uu qofka ka fogaado waxyaalaha la shiilay, kuwaasi oo qofka ku keeni kara dibiryo, isla mar ahaantaana yareyn kara appetite-ka qofka, taasi oo keenaysa in qofku uu qaadan kari waayo cunto culus xilliga suxuurta. Sidaa daraadeed xilliga afurka waa inuu qofku qaataa cunto fudud oo aanan ahayn kuwa la shiilay, balse ah cunto uu qofka ka helayo tamar, isla mar ahaantaana aanan ku keenaynin dibiryo iyo dhereg saayida oo hadhow ka hor istaagi karta xilliga suxuurta oo leh barakadeeda ayaa sidoo kaleeto waxa ay tahay cuntada ugu dambeysa ee qofku uu cunayo xilliga uu sooman yahay, waxaana qasaba in uu qaato cunto uu maalintaasi uu sooman yahay ka heli kara tamar uu ku guto waajibaadka cibaadooyinkiisa, isla mar ahaantaana uu ku dareemo in uu tamar ku helay. رمضان ده حياتي سمع مماتي يا رب دعاتي تقبل عطول رمضان